hawshan maanta oo inta isugu koloni waxa waaye xuska maalinta AIDS-ka adduunka caalamka oo dhan ayaa laga xusaa theme-kana waxa waaye sida hadda aad arkaysiin oo boorka ku qoran maaragtay waxa waaye raac tubta toosan oo macnaha waxa waaye maaragtay tubta oo lagu ciribtirayo maaragtay AIDS-ka lagu ciribtirayo ku haboon macnaha sidaas waaye macnaha dadka qaar waxa laga yaabaa qalad inay u fahmaan macnaha kalmadan theme-ka waa international from UNAIDS-ka noo soo gudbisay caalamka oo dhan mar walba sanad walba hal ku dhigaa la isticmaalaa sanadkan hal ku dhigeedu waxa waaye raac tubta toosan marka taas waaye marka inaad saas u fahamtiin waxaan kaloo rabaa anoo munaasabadan ka faa'iideysanayo inaan idin xasuusino hawshan annaga guddi ahaan waxaan soo bilownay 2005 maaragtay guddiga maaragtay ka hortagga xanuunka HIV AIDS-ka waxaa lagula dhawaaqay baydhabo markii uu noolaay marxuum madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf speaker-kan uu ahay maaragtay Mr. Geedi maaragtay Shariif Xasan uu ahay mataqaana waxa speaker-ka ra'iisul wasaaraha uu ahay mudane Ali Maxamed Geedi markaas maaragtay waxaa nagala soo qayb galay hay'adaha UN-ka oo dhan UNAIDS-ka line ministries-ka hay'adaha ka shaqeeya HIV-ga waxaa lagula dhawaaqay baydhabo 2005 up to now aan ka shaqeynayna barnaamijkan waxaan maraynaa in ku dhawaad 20 sano oo hawshan wadno maaragtay waxaan sameynay dalada dadka xanuunka la nool ayaan sameynay oo daladaas hadda aan magaceeda idin sheegayo oo markii horena ku shaqeynaysay South Central Belief Network magacii waa laga bedeli waxaa loo bedeli Wehel Network magacaana maaragtay loo bedeli marka macnaha dalada waxay ka kooban tahay ilaa 2,000 qof ku dhawaad oo haween iyo caruur ah oo macna inta ismuujis waay oo dalada ku xiran waxa ka badan inta aan dalada ku xirneen oo xagga stigma darteeda faquuqa ka cararaya oo isqarinaya daawooyinkan xitaa si qarsoodi ah ayaa loogu geeyaa waxa u geeyaan mudane maxamed saciid oo kale oo dalada u qaabishan hawshaas ayaa maaragtay dadka qaar waxa ku jiro dad mas'uuliyiin ah dad mutacalimiin ah dad culamaa u diin ah nooc kasta oo xanuunkii la nool laakiin takoorka dartiisa way isqarinayaan waxay dhibaato ku keentay inay isqariyaan problemka oo 20 sano shaqada aan wadnay barrierka ugu weyn oo caqabad nagu noqday waxa way takoorka way takoorkana anaga kaligeena maahan caalamka oo dhan oo ka jira maaragtay dhibaatada oo xanuunka sidii looga hortagi lahaa waayo waxa way hadii qofka la takooro cuqda galayso waa isqarina maaragtay ma ismuujinaayo bulshadiina markaas ma caawinaayo ay marka waxa dhibka waxa keenay waxa way takoorki hadii qofka la takooro waxay keenaysaa inuu isqariyo marka bulshadii oo caawinin ayadana ay caawinin marka oo markaas ay noqoto cudurkii inuu faafo dhibka waxa keenay marka takoorka waa problemka ugu daran oo barrier ugu noqday oo takoorka oo macnaha qof dadka la tagoorayo hadii wax yar example ah inii siiyo waxa dhacday nin oo xanuunkii la nool oo maaragtay dhuxul gadaayo in maaragtay laga kala cararo markii la ogaaday inuu positive yahay in laga kala cararo dhuxul maxay tahay dhuxul waxa way iidaaba dab lagu shidaa iidaaba maaragtay dab kala gelina lagu shidaa jeermi ku noolaa kara male haduu virus yahay haduu bacteria yahay nooc raba aad iidaaba dabka lagu shidaa marka aqoon yaradii oo dadkayni waxay keentay qofkii miskiinkii dhuxusha gadaayay in laga kala cararo oo dhuxusha laga gada waayo problemkaasna waxa keenay takoorka marka waxa way muhiimadda ugu weyn maanta World AIDS Day aan ka faa'iideysanayno maaragtay bulshada qaybaheeda kala gidisan haday tahay mas'uuliyiinta gobolka Banaadir mas'uuliyiinta ka socda xafiiska madaxweynaha maaragtay mas'uuliyiinta kale kulli dhamaan cid kasto meesha fadhiso waxa loo baahan yahay sidii takoorka aan isaga kaasho lahayn dadkaas xanuunka la noolna takoorka looga ilaalin lahay waa problemka ugu weyn sababta maxay tahay waxa dhacday maaragtay shaqooyinka in laga buriyo waxa dhacday ilmahoodii waxbarashada markii la ogaado inay cunugan waalidkiis positive yahay in ilmihii yara ay kala cararaan qaarkood iskuulka laga soo buriyo maaragtay shaqooyinkii laga buriyo waxay xaq u leeyihiin wax kasto qofka bini aadanka oo caadiga ah basic need life-ska macna nolosha basekeeda wixii ku xiran ayay ayagan xaq u leeyihiin haday tahay guri oo deegaan ay deegaan haday tahay nafaqo haday tahay shaqo haday tahay waxbarasho waxa soo dhan xaqay u leeyihiin xuquuqdaas oo dhan marka waxa keenay inay baabado takoorkii oo la takoorayo caalamka oo dhan problemka oo laga qaylinayo waxa way sidii loo address garay lahay oo looga bixi lahay takoorka waayo ma aragti cudurka saad fahmaysiin 80% wuxuu ku fudaa maaragti nin inaag isqabo ama xalaal ha isugu tagaan ama xaraan 20 ka dhiman waxa waaye indirect waaye macnaha ama maaragti waxa ay goos oo laga bixiyay martaqaan waxa waaye mataqaan dhiig oo la baarin oo lagu shubay
maaragtay sakiin oo qofkan ku xirtay oo qofkan dhiigiisa gaaray 20% waxa way sidaas indirect way laakiin boqolkiiba 80 wuxuu ku furaa nin inaag isqabo ama xalaal ha isugu tagaan ama xaraan galmadaas oo dhacaanka isgaaro marka macnaha dadkii marka aqoontii dadkii waxay u anaga hadda 20 sano ku dhawaan waxay gelinaan wadni waxaan tababarnay xildhibaano waxaan tababarnay wasiiro community-ga nooc kasto kala gidisan aan tababarnay oo anagoo istagmadi ka dagaalamayno hatta waxaa jirta hadda kor xildhibaanaan kaxaynay waxaan geynay maaragtay saddexda zone ka socda Somaliland Puntland iyo Koonfurta waxaan isugu geynay Djibouti meeshaas hay'adda UN kan naga taageeraysay UNDP-da meesha tababar lagu siiyay sidoo kale gudaha inta aan tababar ku siinay xildhibaano iyo wasiiro iyo community kala gidisan intaas waxaan wadnay sidii takoorka looga bixi lahaay oo dadka looga saari lahaay haddana still meeshaan taaganahay wax oo horumar oo laga sameeyay way yar tahay marka maanta macnaha waxaan kaloo rabaa dhibaatada jirta waxay tahay maaragtay dadka xanuun kala nool qofka fiyow xaqa uu leeyahay oo asna leeyahay wixii xuquuq uu leeyahay qofka fiyow oo asna leeyahay marka waxaa jirta hadda midalan ka soo qaad waxaa jiro maaragtay ilaa 7 qof hadda dhimatay oo dalada dadka xanuun kala nool ka tirsanay kaliya ka fadhiyeen cusbitaalaadkii oo ku shaqalada lahay inay maaragtay dialysis u sameeyaan ee kaliya ka dhaqaan markay ogaadeen positive inuu yahay balaankay ku soo tuureen waa u diideen 7 qof la maraa oo u dhimatay daryeelkii xagga mashiinka la'aantiisa marka munaasabadan maanta anoo ka faa'iideysanayo mas'uuliyiinta saddexda nin maaragtay mudane cabdiraxmaan dheere iyo cabdikariin iyo mascuud iyo maaragtay gobolka banaadir agaasimaha mudane cabdiraxmaan iyo mas'uuliyiinta kale oo gobolka ka tirsan iyo mas'uuliyiinta kale oo nagala soo qayb galay dhammaan maaragtay doctor Saliul oo ka socoto ururka dhaqaatiirta baryoortigan waxaan aga faa'iideysanaynaa waxaan ka codsanaynaa in World AIDS Day markuu dhamaado isu nimaano macal gudiga sidii loogu heli lahay machiniska ay xaq u leeyihiin maaragtay kaliya in looga safeeyo oo maaragtay oo 7 qof hadda marayo si ay haddana in kale ka badan u dhimanin arrinkaas oo aad target muhiim u ah iyo sidii ayaga wax noloshooda wax looga qaban lahay haday tahay shaqo haday tahay waxbarasho haday tahay nafaqo wax alla wixii xuquuq ay u baahan yihiin maaragtay sidii loogu heli lahay xataa guriga qaar laga bixiyay markii la ogaado positive leeyihiin guriga iga bax leeyiri soo dhibaato maahan guriga maaragtay qofka in laga saaro ala positive tahay waan qalad cudurkiina maxaa dhibka keenay qofka hadawsan fahmin sidoo cudurka ku fahmo ku gudbo dhibay leedahay anaga hadda way nala shaqeeyaan daladii anaga waa isku labanahay 20 sano waa nala shaqeynaa waxbaan wada cunaa waa wada shaqeynaa wax walba wada sameynaa macnaha anagoo isugu jirno negative positive asla wada shaqeynaa markay cudurkii qofka haduu fahmo qaabka oo ku gudbayo markaas waxa way takoorki waa yaraana marka anoo munaasabadan ka faa'iideysanayo mas'uuliyiinta maanta meesha fadhiso oo hadda aan magacaabi gobolka doctor Saliul maaragtay mas'uuliyiinta ka socdo xafiiska madaxweynaha mudane cabdiraxmaan dheere iyo cabdikariin iyo mascuud dhammaan iyo mas'uuliyiinta kale waxaan rabnaa sidii loogu heli lahay wixii xuquuq ay leeyihiin rights ay leeyihiin nooc kasta ay tahay